السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بداوض يال كسر دواذا كرسور channel وأنا خضر هيبا وربحنتين maantana waxaan daaha kaga rogi doonaa mid ka mid ah dhacdooyinka yaab kale ee uu sababay cudurka COVID-19 ee muddooyinkii ugu dambeeyay adduunka farabadan ku hayay. Dhakhaatiirta dalka Ingiriiska ayaa qirtay inay ka damiyaan qalabka ka caawiya oksijiinta dadka xaaladoodu aadka u liidato ee ay ku adag tahay inay u qaataan hawada sidii loogu talagalay. Haddaba warbixintaas oo faahfaahsan waxa inoo diyaariyay wariyaheena Nimcaan Ismaaciil Xasan Jigre. naxdin iyo argagax dhakhaatiirta waddanka Ingiriiska oo qirtay dadka qaar laga furo mashiinada neefta siiya bukaanada coronavirus si ay degdeg ugu dhintaan iyo sababta ku kalifaysa xilligan adag. in la helo qalabka neefsashada caawiya waa farqiga u dhexeeya nolosha iyo geerida dadka sida daran ula xanuunsanaya cudurka COVID-19. qalabkan oo afka qalaad lagu yiraahdo ventilator wuxuu dadka siiya neefta oksijiinta ee gasha sanbabada, sidoo kalena wuxuu ka soo saaraa kaarboonka, taasoo ah mid aysan qalabka la'aantiis dadka xanuunsanaya samayn karin. hase ahaatee mashiinada neefsashada ma wada badbaadin karaan dadka oo idil. shaqaalaha caafimaadka adduunku waxay wajahayaan go'aano adag oo mararka qaar ku qasbaya inay qalabkaas ka damiyaan dadka aysan xaaladoodu soo fiicnaanaynin. in qofka sakaraadaya laga damiyo qalabkan waa xaalad murugo badan iyo xanuun leh. mararka qaar waxaan dareemaa inaan si markii loo eego sabab u ahay geerideeda, ayay tidhi Janietta Natley. waxay gabadhan madax u tahay kooxda kalkaaliyaasha ee ka shaqeeya qaybta bukaanada halista la dhigo ee ICU ee isbitaalka Royal Free ee magaalada London. qalabka neefsashada caawiya wuxuu muhiim u yahay bukaanada sida aadka ula xanuunsan cudurka COVID-19. Natley oo u dhalatay koonfurta Hindiya waxay waaxda qaran ee adeegga caafimaadka England u shaqeynaysay muddo 16 sano ah, waxayna ku takhasustay qaybta bukaanada halista la dhigo ee loo yaqaano ICU-da. in la damiyo qalabka neefsashadu waxay qayb ka tahay shaqadayda, ayay tidhi kalkaalisadan 42 jirka oo BBC-da u warantay maalin ay fasax ahayd. hadalkii ugu dambeeyay intii lagu jiray isbuucii labaad ee bishani April, isla markii ay Natley shaqada tagtay subax aad u mashquul badan. madaxda qaybta ICU-du ayaa u sheegay in laga doonayo inay daweynta ka joojiso mid ka mid ah bukaanada qaba COVID-19. qofka bukaanka ah ee loo diray waxay noqotay kalkaaliso 50 jir ah oo ka shaqayn jirtay caafimaadka bulshada. Natley waxay arrintan kala hadashay gabadh ay dhashay haweeneyda bukaanka ah, maadaama uu culays badan keenay cudurka safmarka ah. kalkaalisooyinka ICU-da ee Natley ka mid tahay way adag tahay inay nasasho helaan waqtiga shaqada. waxaan u xaqiijiyay in hooyadeed aysan wax xanuun ah dareemaynin, ayna u muuqatay qof qanacsan. waxaan sidoo kale ka codsaday inay hadalkii ugu dambeeyay ku dhahdo hooyadeed waxyaabaha diiniga ana ay samaysato. sariiraha yaala qaybta ICU-da way isku xigaan. haweeneyda loo diray inay hawada ka joojiso waxaa ku hareereysnaa bukaano kale oo kulligood miyir daboolan. waxay jiiftay sariirta 8aad. dhammaan bukaanada kale aad bay u xanuunsanaayeen. waxaan xidhay daahii, dhammaan qalabkii qayladhaantana waan damiyey. shaqaalaha caafimaadka ayaa sidoo kale shaqada hakiyey xoogaa. kalkaalisayaashii way wada aamuseen. sharafta iyo qanacsanaanta bukaanada waa mudnaanteena koowaad, ayay tidhi Natley. si boosas dheeraad ah loogu helo dadka tirada bukaanada xad-dhaafka ah, isbitaalada qaarkood sida Royal Free oo ku yaala London waxay ballaariyeen qaybta ICU-da. kadib waxay telefoonkii dhegta u saartay bukaanka, waxayna gabadheeda ka codsatay inay hadasho. aniga wuxuu ila ahaa telefoon lagu hadlayo kaliya, laakiin waxay muhiimad weyn u lahayd qoyska. waxay doonayeen wicitaan muuqaal ah, laakiin nasiib darro telefoonada gacanta looma ogolo gudaha qaybta ICU-da. daminta kadib markii la fuliyay codsiga qoyska, Natley waxay muusig khaas ah ka daartaa kombiyuutar, kadibna waxay u dhaqaaqday inay bukaanka ka damiso qalabkii neefsashada. dhinaceeda ayaan fadhiistay aniga oo gacmaha ka haya ilaa ay naftu ka baxaysay, ayay tidhi. bukaano badan oo ku jira qaybta ICU-da waxay geeriyoodaan iyagoo keligooda, maadaama aan heladooda loo ogolayn inay halkaasi ugu tagaan. go'aanka ku saabsan in qalabka neefsashada iyo daweynta laga joojiyo bukaanada waxaa qaata koox dhakhaatiir ah oo waxyaabo badan tixgelisa. inta tallaabadaas la qaadin waxaa la eegaa da'da bukaanka, xanuunadii uu horey usii qabay, sida dawada ugu falcelinaya iyo suurtagalnimada inuu qofku soo caafimaado. haweeneyda ay Natley ka damisay qalabka neefsashada waxay ku geeriyootay muddo 5 daqiiqo ah, dhimasho kelinimo ah.
kadib waxay ka wada bixisay faleembooyinkii daawooyinka lagu siinayay. Gabadha ay dhashay bukaanka geeriyootay iyadoo oo aan ka warqabin waxa isbedelay ayay weli kusii hadlaysay telefoonka, wayna u sii ducaynaysay. Netla oo aad u calool xumaanaysa ayaa gacankii telefoonka qabatay waxayna u sheegtay in hawshu ay dhammaatay. Kalkaalis ahaan waxay sheegtay inaysan hawsheeda daryeelka istaagaynin marka uu bukaanku geeriyoodo. Aniga oo ay kalkaaliso kale caawinaysa ayaa meydkeeda sariirta ku dhaqay, waxaan ku xidhay kafan kadibna waxaan ku xidhay bacda meydadka ayay tidhi. Netla oo ay BBC-da u sheegtay ka hor inta uusan imaanin cudurka COVID-19 ama coronavirus, dadka ehelada u ah bukaanku waxay si foolka fool ah dhakhaatiirta ugala hadli jireen arrinta ku saabsan ka joojinta dawada. Qaraabada dhow ayaa sidoo kale loo ogolaan jiray inay ICU-da ku sugnaadaan marka bukaanka laga daminayo qalabka nolosha ku caawinaya, laakiin hadda qorshahaasi kama socdo meelo badan oo ka mid ah caalamka. mahadsanid nimcaan. waa tahay daawadayaal, haddii aad ka heshay barnaamijka ama aad xiisaynaysa inaad channelka ka mid noqoto, fadlan ha ilaawin share, like, subscribe iyo commenti. intaanu ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamid ah, waxaan kaga tegaynaa asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. warkaruuxuhu khatar weeyaan, qaradaha gabi laga qaylshin, salaanta qofnaba ha ka qaadina, qofkii qufacana qabta oo xidha, ha isla qayrina ha isla qadanina, hadda qayshaan kala durkay, marka qalisaan kala seexday, qosol maahe qatawaanada, qosol maahe qatawaanada, inta lagu qaban adigu isqabo oo ha qaadin hana qaybine, inta lagu qaban adigu isqabo qolkaaga dhex joog, inta lagu qaban adigu isqabo qolkaaga dhex joog.